aadna waxaan ugu bishaaraynayaa gabdhaha Soomaaliyeed furtaanku uu yaraanaya runbaa idin sheegayay waxaan sidii horena u mahadcelinayaa inay samraan gabdhuhu nimankii cilaajkoodii baan helay qof walba labadiiba waxay ka caawinayaan biyaha degdeg ah ilaahay idinkiis waxaan u soo helay reer badan baa badbaadaya xalkoodii baan helay inay samraan baa rabaa marka gabdhaha Soomaalida kulanti wanaagsan saaxiibayaal halka waxa marti ku ah Dr. Jaamac Ilaala Jecel Dr. igu wareeriseen waa Dr. Jogta Culus ayaa soo noqday waxaan ku kulanay maanta magaalada Boosaaso ee caasimadda ganacsiga Puntland ahna hooyada Soomaaliya Dr. Sodow ma sha Allah waa dhawaay saaxiib waxaan ku meeshan dhalinyarada Puntland joogta ee magaalada Boosaaso ayaa iga codsaday inaan imaado Boosaaso waana soo ajiibay waana la joogaa maanta alxamdulillah marka laga yimaado imaatinkaaga iyo dalabka dhalinyarada maxaa cusub oo dadka u sheegaysa waxyaalo badan baa cusub maalin walba cilmigu tadaawur buu samaynayaa isbedel iyo horumar buu samaynayaa maadaama aanu target leeyahay oo istamta faliyati shajaratan inda jaama bisur'a su'aalo badan baa igu soo noqonaya oo aan rabaa inaan halkan uga faa'iideeyo dadka insha Allah maxaa kamid ah su'aalahaas su'aalaha waxa kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta waxa joogeen YouTube-ka horta way ku xiran yihiin su'aalaha waxa kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta waxa joogeen YouTube-ka horta way ku xiran yihiin waxayna ka cabanayaan xagga siigada baash la yiraahdo ana ayaanti ka hadlayay xalkeedana Ilaahay waa ii sakhiray marka maadaama ay talo iga soo codsadeen iyo waxyaalaha looga gudbi karo waxyaalaha looga hado toobad keenaa marka koobaad ilo disino baashan waa dambi waa diinteena islaamku ma ogola wax kastoo diintu kaaga digtayna caafimaadkaaga dib bay u geysanaysaa waxaan u sheegayaa dhalinyarada ama dadka baasha sameeya inay horta iska daayaan ayagoo ilaalinaya caafimaadkooda marka feeristi waa inay Ilaahay u noqdaan marka toobad celiyaan marka labaadna 6 bilood bay u baahan yihiin daaweyn si loo soo dhiso muruqyadii iyo awoodii baalkula taas waa inta Dr. wax badan waxa igu soo noqnoqda su'aal ah ma Dr. Jaamac baa tahay Dr. Jaamac meey Dr. Jaamac telefoon qawmayo maxay tahay wax cusub dadka haysanad ma sha Allah hadda kor waatan ka istisnooday arintaas anigu daawada markaan diyaarinayo telefoonka ma qabto hadda shanta qaaradood daawooyin ani dawladda taageeraysa ma jirto nin shacabaan ayo dadaalaya waxa rakarooniya inaan gaarsiiyay America iyo Aasiya inta u dambaysa daawo anu badiya ana ibn badwi anu rimiyaanahay السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو حرمها اسكو دوينتا ديرتا دار الرحمه دكتور جامع إلالا جecel oo ku kala yaala Boosaaso Garowe Gaalkacyo iyo Galdogob دكتوركuna xanuunada uu ka daaweynayo waxa kamid ah baabasiirka oo 3 nooc ah galaha ama infectionka waa isku mid ah oo 3 nooc ah sonkorta oo 2 nooc ah xanuunada maqaarka iyo waliba xanuuna kale dawada dhawaan meelaha dhulka laga soo qodin dhirta laga sameeyo warshad bay dhaxgeliyeen awood ma leh dhameystiran dhakhtarkii aadaadana jawaan buu ku dhahayaa gurigaaga dhigo oo dhowr bilood ayaad cunay xanuunka ma dhiciso kharash badan ku dheer dhagay daroola waanada dhagaysto marti waa la dhuuxa adoon lacag ka dhumin dhalanteed lagu qorin jaawareerna kugu dhicin sharciga noo soo dhigay dhirtu waa mudaawaad ee dib hadaa dareentada ku soo dhow xarumaha isku daweynta dhirta Daaru Raxma ee Dr. Jaamac Ilaala Jecel imisa dhulyaalo dhakhaatiir ka qoosteen dhirta lagu daweeyo dhaqso caafimaad helay ka daalo oo DR Jaamac Ilaala Jecel at youtube.com